الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. قصدان وقصد عداه حنون بدل حنبارسن آخر كدمنا قل ونقلو قاري وحين كساب سنتهي بر الوالدين. آبا أيا وحو للي شن قبلود أيو للي وحا كلمة حاسكيسي وحو يستاغ إنو أشقايا كدي مركي قبله سوي نادين وحو دون آبه إنو قبله سأكوريا مدى وين مدى كحكتا إلا مدى أغير إنو أقوري أيوغا عن صدي لكن قبل ويلد ويكديدي أيضا ربط إنو والد كدو قد ميسا نينو دموي إسكديدي وحال قوري قبل كحكتي وحال قوري قبل ستحد وحال قوري مدي أفراد مدى شان لكم إسكديدي قبل ويلد وحي فديسة قوري أبهد أيضا أقال مينيسا أو وحوال بأورا وقبانيسا هلا إلا أو كقوري ودي أبيه مركو أبيه دنتي وحو ريب وصيو قبليه ويسكو إمادين وحي فرن دردارنكي وصيدي آبهد وقيريودي وحي هلين يكو قرانتهي قرقيان لقيبين إلا قبدا وين أي كقور ستا واي وحي قور كيدي وناقيدي سكاقدافتي أني قدرتي دي قرق مركب وحبالا يلا قيبين إلا قبدا وين كقور ستا لكن قبليه أفرتاها وصيدي آبهد ويديدين waxayna leeyahay waxaan rabnaa guriga inaan iibino si aan u qaadano qof walba nasiibkooda xalka ku lahaa gabadhii weyneed way murgootay waayo meel kale aadama taqaano waxay sameeysan ma taqaano guriga ayaa beec la geeyay markii la beec la geeyay waxay qisadaan ahayd qiso aad u yaab badan waxay nin ganacsato ah wuxuu iibsaday gurigii ayuu iibsaday lacagtii ayaa la kala qaybiyay waxay ka codsatay inay guriga sii joogto intii muddo yar ay meel kale qeyrayso ku noolaato ninkii ganacsatada uu ku waafaqo wuxuu yiri waxba korkaaga dambi ma ahaanin waa degnaa kartaa inta doontid beeci uu dhacay xoolihiina gabdhihii waa loo kala qaybiyay mid walbana waxay qaadatay xaq ay lahayd waana iska wada hayaameen oo gabar walba gurigeedii iyo ninkeedii xaqiisa ay aaday laakiin gabadha weyn muuminada ahayd ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma dayicin ilaahay subxaanahu wa ta'ala gabadha oo waalidkeed u baarnaqay khidmadiisa ilaahay ma dayicin bilihi ayaa tageen maalmihi ayaa socdeen kadib walaashii weyneed waxa la gaaray muddadii waxa la soo xiriiray ninkii guriga iibsaday markaas ay cabsootay waxay u maleysay in la burin doono oo guriga iga bax la dhihi doono markaas xaaladeeda weydiiyay waxay u sheegtay waxa dhibka haystay u sheegatay markaas uu ku yiri kolkaaga wax dambi ma ahaanin waxaan ku soo wacay inaan ku dhaho waxaan rabaa inaan ku guursado kadibna guriga aad degantahay meerahan kaaga dhigo hadii aad doontid waa yeelaysaa hadii aad doontana waa iska diidi kartaa labada xaalad ba adiga ayaa shakhsi u leh gabadhii weyneed arinkii markay maqashay way ooysay waxayna ogaatay in allaha la yudiicu amal almuhsinin qofkii wanaag sameeyo ilaahay inuu san dayicinin ninkii taajirka ay ganacsada ah way ku waafaqday guurkiisii waxayna ku noolaatay sacaado taam ah iyo zawj wanaagsan iyo guri wanaagsan mahma ficil khayr ah sameeysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma ku dayacay fa kayfa albir waalidka u baarnaqata bal ka waran waayo nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam albirru la yabla wadlamu la yunsa wadiyanu la yamud i'malu ma shi'tum kama tadinu tadan dambiga gasha wanaaga sameeysa ma baadiyo dambiga gasha lama hilmaamo الله ديان كان مدينته انت دونت سمي سيده دين كدغتو امبا دين لا يغا دغا والله اعلم. الحمد لله.